madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo isku haysta baarlamaanka dalka Soomaaliya fur iyo sidoo kale furi maayo ceebtii ugu weyneed oo taagan iyo baarlamaankii ugu awoodda badnaa dawladda Soomaaliya oo xilligan la isku haysto in la furo iyo sidoo kale inuu sii xirnaado haddaba waxaan ku soo gudbinayaa sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in baarlamaanka dalka ugu sareeya uguna awoodda badan oo xilligan sii xirnaado baarlamaankii waxa laga dhigay meel maqaayada ama goob ganacsi oo sida ay doonaan ay ka yeelanayaan koox yar ee talada haysa haddaba sababta laba qodob oo u sabab arintan ayaan kula wadaagaya adiga maxay kula tahay ugu horeyn aragtidaada nala wadaag muuqaalkana si share garay haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dhaho si ay ku soo gaaraan xogaha iyo update-ka aan halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilowno sida aad wada ogsoon tihiin baarlamaanka Soomaaliya kalfadhigii ugu dambeeyay ayaa la filayay in 23 bisha la soo dhaafay aan ilaahdee bisha Agoosto oo furmo hase yeeshee ilaa iyo iminka baarlamaankii dalka albaabada ayaa isugu xiran waxaan ogaanay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ay isku hayaan baarlamaanka dalka fur iyo sidoo kale ma furaayo madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ku doodayaa in baarlamaanka la furo kadib markii uu iska kala qaboojiyay mooshinkii ka dhanka ah ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre waxa la xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore lahaa amarka lagu xiray baarlamaanka sidoo kalena uu ku soo daahay in dib loo furo oo kalfadhigiisa uu sii wato sababo la xiriira in madaxweynuhu uu aad uga cabsanayay in mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay si weyn ugu howlanaa inay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre in ay mooshinkaasi oo dhaqangal noqdo hase yeeshee madaxweynuhu markii uu ogaaday lacag tira beelana uu ku bixiyay sidii uu mooshinkaasi u kala furfuri lahaa sidoo kale uu ku guuleystay inuu dhammaan xildhibaanadii dalka gaar ahaan xildhibaanadii mooshinkaasi abaabulayay oo gibi ahaantoodba kala furfuro xilligan waxa uu go'aansaday in baarlamaanka dalka la furo laakiin Aadan Madoobe asigana muujad culus ayaa ku soo kacday oo xilligan waxa uu leeyahay baarlamaanka dalka xilligan ma furayo sababta oo u aaneynaya gudoomiyaha Aadan Madoobe in uu san furaynin baarlamaanka waxa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhaweystay ninka lagu magacaabo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo halis weyn ku ah gudoomiyaha golaha shacabka ee iminka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe Aadan Madoobe waxa uu shaki ka qabaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka ka tuuro sidoo kale uu ku bedelo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan ku dhawaaqay xisbi oo ugu magac daray horumar iyo midnimo qaran kaas oo la sheegay in lacagta iyo sidoo kale waxyaabaha lagu maalgeliyay uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jeebkiisa ka bixiyay sidoo kale uu yahay mid gacan ku rimis ah oo maqaar saar oo la doonayo in doorashada uu madaxweynuhu uu ku boobo taasi waxa ay keentay dabcan in gudoomiyaha Aadan Madoobe uu arinta fahmay sidoo kale uu sheegay in baarlamaanka uu dib u dhigo ilaa iyo uu ka xaqiijinayo in aan xilka laga qaadi karin sidoo kalena Shariif Xasan awoodiisa ku dhex leeyahay baarlamaanka gudihiisa loo wiiqayo haddaba arintan waxay dhalisay khilaaf iyo sidoo kale iska horimaad waxaana kooxda madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxda Aadan Madoobe la sheegay in arintan si weyn isugu hayaan waa baarlamaanka waa inaad furtaa Aadan Madoobe sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh sidaas uu leeyahay halka Aadan Madoobe uu leeyahay maadaama malakamiidkii siyaasadeed aad soo dhaweysatay madaxweyne ma furayo baarlamaanka oo adiguba markii aad iska qaboojisay mooshinkii ka dhanka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib ayaa doonaysaa in la furo xarunta baarlamaanka dalka haddaba waxa dadka Soomaaliyeed isweydiinayaan sababta baarlamaankii dalka ee ugu awoodda badnaa madaxweynahana soo doortay gudoomiyahana soo doortay ay sidaasi u noqdeen baarlamaanka Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa mid aan shaqeyn sidoo kalena calooshad u shaqeystayaal ay yihiin ragga markaasi ka shaqeeya lama ogo goorta uu furmi doono laakiin xildhibaano dhowra ayaa qeeladhan xoogan muujiyay dhinaca kale xoga soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay abaabulayaan wali sidoo kalena geed fadhi u yihiin mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ay ku doonayaan inay xilka uga tuuraan sida caadiga ilaa iyo 60 mudane ayaa mid walba maamuladaas kamid ah ka yimaada waxayna awood u leeyihiin inay si degdeg ah mooshinka uga keenaan ra'iisul wasaaraha labadaasi marka la isku daro waxay noqon karaan ilaa iyo 120 mudane gudaha koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo maamul goboleedyada kalena waa laga heli karayaa ilaa iyo dhowr mudane oo lagu buuxiyo mooshinka ka dhanka ra'iisul wasaaraha laakiin ma coddo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi agtiisa ay saameyn xooggan ku leedahay waxaana la sheegay in xilligan barkintiisu u dheertay maadaama uu ra'iisul wasaarihiisa ka badbaadiyay halis weyn oo ku soo wajahneed mooshinka waxa hogaaminaya Saabir Shuuriye
ninka lagu magacaabo xildhibaan Odawaa rag kale oo waaweyn oo kamid ah xisbiga madaxweyne Xasan Sheikh hase yeeshee lacagtii ugu badneed ayaa gacanta laga saaray waxaana madaxweynuhu ku guuleystay in la soo afjaro mooshinkaas laakiin Aadan Madoobe ay xilligan haysataa oo waxaa la doonayaa in la soo afjaro waayihiisa siyaasadeed oo Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan labaduba horay ay baarlamaanka u soo qabteen sidoo kale iminka waxay ku doodayaan in ay qabtaan mar kale inta ka dhiman mudaxiraadka madaxweyne Xasan Sheikh sida ay ku qanacsan yihiin Shariif Xasan waxa la sheegay xitaa inuusan arintan aad ugu xoog badnayn laakiin waxa uu doonayaa in Maxamed Mursal oo dhiso halka markaas uu doonayo Maxamed Mursal inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka oo uu bedelo Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe adiga maxay kula tahay aragtidaada nala wadaag muuqaalkana sii share garay haddii aad ku cusub tahay janaalkeena mar kale subscribe dhaho si ay ku soo gaaraan xogaha iyo update-ka aan halkan ku soo gudbino markana ila daawo halkan joogna waxa weeyaan masjidka la yiraahdo masjidka Xaaji Yuusuf Xasan caawa waxaa madoobaatay bishii ayaa madoobaatay annakana daanaha jamaacada masjidka Xaaji Yuusuf waxaan dukanay sunnada nabi Maxamed wixii ka sugnaateen dukanay nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ka sugnaaday ayaan dukanay oo nabigu sameeyay ayaan sameynay oo ah laba ragco oo sunno ah oo ragcad halka ragca ay leedahay laba istaag iyo laba rukuuc iyo laba ixtidaal sidaasana sunnah oo nabiga ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam mubarak calayh shamsadan madoobaadkan xilliga nabiga u dhacay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ah marka cadaynaysa oo ku qoran Bukhari iyo Muslim ku qoran ayaa cadaynaysa xadiisku wuxuu cadaynaa in kasafat ash-shamsu ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam mubarak calayh yawma maat Ibrahim waraxdi ayaa waxay madoobaatay maalintii uu dhintay wiilkii nabi Maxamed sallallahu wasallam calayhi oo la oran jiray Ibrahim oo ay dhashay haweeneyda la yiraahdo Maariyatul Qibdiya ay dhashay wiilkaas ayaa geeriyoodo dhintay kadib saxaabadu waxay u fasirteen mana ku fasireen waxay dhaheen in kasafati shamsu limawti Ibrahim waraxdi waxay u madoobaatay wiilka Ibrahim dartiis ayay saxaabadu dhaheen nabigu wuxuu yiri sidaas ma ahe إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله والرحضة يبشوا والله علامه دائما دوبادان والله علامه وكمية علامات إلهي يخوف الله بهما عباده إلهي سبحانه وتعالى وكو عبسك لي الله بدو دبا قدوما كيس نبي قحوري فإذا رأيتم ذلك حدي أركاس أركتان أي الرحض ما بش مدباتو أركتان فصلوا كذا وادعوا الله إلهي نبريا حتى ينكشف ما بكم انتو اذا كفيدمه او اذا كتغو waxa idin ku sugan oo mugdi ah marka bisha madabashadeeda iyo waraxda madabashadeeda maanta ma bilaaban adduunka intay jirta ayay madabaanaysay laakiin hadii madabaato waxa la iska rabaa dariiqii nabi Maxamed uu qaaday saxaabadu qaadeen in la qaado oo ah in la dukado laba ragco oo sunno ah oo laba istaag iyo laba rukuuc iyo laba ihtidaal leh arintaas ayadana annaka insha Allah caawa waan sameeynay ilaahay baa ku mahadsan jalla jalaaluhu ilaahayna naga faydo ummadda muslimiintaana ilaahay ha u naxariiso fadligiisa Allah ku afiyo sidaas insha Allah taala ayay mataqaana aysan ugu dhamaatay ma yeelay xadiiska ba cadeynabo in macna inay dunuub laga tahay xadiisku ku cadeynay leeyahay yukhawwifu Allah bihi ma ibadahu ilaahay adoomakiisa ku cabsi geliya adoomaku inta dambi galay adoomaka la cabsi gelina waa adooman dunuub galay way waa sidaas